بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وهرين الله سبحانه وتعالى يا مهد اسكاله ونسكا كان دغمدا warshiiq marka hore waxaan halkan mahad balaaran ugu celinayaa kana salaameena ugaas maxamuud cali ugaas malaaq maxamed malaaqadi xildhibaanada dawlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaanada federaalka xafiiska madaxweynaha mudane xasan sheekh maxamuud wafdiga balaaran oo ka socday maamulka gobolka Shabeelle wuxuu horkacayo gudoomiyihii gobolka maamulada degmooyinka xamar oo halkan nugula sugan siyaasiyiinta iyo waxgaradka bulshaweynta reer warshiiq oo maanta halkan ku wada sugan waxaan leeyahay markuu wadi mar labaadbo salaamu alaykum ilaahay maad iska leh oo kulankan weyn oo aad ku balaaran maanta iska keenay kulankan waa hordhiciisa amba ujeedadiisa dhan waa laga wada hadlay waa kun sanadeed oo sanad waliba oo ku beegan bisha Carafo maalmaha ciida ugu horeeyo oo halkan ka dhaco oo degmada warshiiq lagu dhigo kulanka wuxuu kale oo xambaarsan yahay munaasabadan aad ku qiimaha badan oo kulan duco iyo soo dhaweyn ah ugu muujinayeen bulshaweynta ku dhaqana degmada warshiiq iyo nawaaxigeeda iyo dhammaan guud ahaanbo gobolka Shabeellada Dhexe iyo gobolka Banaadir iskaga kala yimid bulshada ku abtirsato deegaanadan iyo guud ahaan dawlad goboleedka Hirshabeelle iyadoo kulankaas lagu duceynayay laguna soo dhaweynayay xildhibaanka cusub ee dawladda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Ismaan Xaadoole oo dhawaan lagu soo doortay sida wada soonaanay dawlad goboleedka Hirshabeelle matalaad rasmi ah ee wada heleen deegaanadan sida wada soonaanay waa hadii aan maamulka degmada waxaan aad ugu faraxsanahay dhaxjoog aan u nahay bulshada qaybadeeda kala duwan oo ka kala yimid caasimadii iyo dawlad goboleedkii dhamaan oo ugu horeeyaan duubkii dhaqanka iyo siyaasiyiinta heer federaal heer state-bo inay maanta nugula sugiyo xarunta degmada warshiiq qayb kamid ah oo la yiraahdo ceelow aan joogno maanta aan ku wada suganahay waxaan insha Allah taala sida hore ugu baranay ismaan asigoo in xildhibaan oo wax qabadkiisa iyo tayadiisa deegaanadan wuxuu ka qabtay iyo wuxuu u tar horaan u aragnay hadda xildhibaan uu yahay bilaaw uu yahay oo aan ogsoonahay in dawladii curdunkeed hadda ay dhalato in yar oo muddo ku fadhiyo xilka iyo loo igmaday waan ogsoonahay maanta waxaan u maleynayaa Soomaali weyn iyo guud ahaan bulshada qaybadeeda kala duwan oo maanta u matalo isku imaatinka maanta la iskugu imaaday isku cid hadda maanta laga wacay u maleemayo inay jirto laakiin waa dhamaantood ayuka iskeeneen waxaana hilow ay u qabaan xildhibaankoodii iyo isku duubnidka isku duuban yihiin iyo guud ahaan udub dhaxaadku maanta u naqay iyo dhaxjooggiisa sharaf u ah insha Allah taala waxaan leeyahay xildhibaanka dardaaran waa u jeedinayaa bulsho ku jecel oo garbahaga taagana jiro degmo warshiiq ahaan waxa ka jira tabashooyin badan ee kala tabanayaan qabaa'ilaadka dhex degan soo xildhibaanka state-ka oo ka hadlay xildhibaan Yuusuf oo sheegay waa in la kaashado waana kaashanayna insha Allah taala waxaana ka rajaynaynaa kulankan maanta munaasabada ducada iyo soo dhameynta aan u fadhino oo xildhibaanku uu balan qaad in kulamo hor dhaca ay dhici doonaan oo la isku arkayo sidii xal waara lagu gaari lahay dhibaatooyinka soo naqnaqday ee ka jira degmada warshiiq waxaan rajaynaynaa insha Allah taala kulankan gudihiisuba iyo maalmaha nagu soo aadan inay soo afjarmi doonto asigoo hormuud u noqon doono xildhibaan Ismaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum.